السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سدو هدي عصوب تاعي فضلا جناك سبسكر نوصل وضمبنتي دكتور جابر إن شاء الله تعالى وصولاتي عشرة بدن امتحان بدن على سمين دونا ما أنت لكن حارة إن اللي وداعو بوقت ميسن إلى آخرستو سنة كواد جامعة هدي هتا medical student especially medicine هدي أبريتيد وحكول وداعي دونا بوقت ميسن إلى جاربة إن آخرست أوكي وحكول وداعي دونا سدو كله resources وفي عن إلى أديكسو سنة كواد جامعة waxaa ku wadaagi doona marka saddex maadada kood waa anatomy-ga, maadada labaad waa physiology-ga, maadada labaad waa biochemistry-ga. Waa saddexda maado ee sanadka koowaad inta badan xoog lagu saaro. Okay? Maadada waxa ku horumareynaa anatomy-ga. Anatomy-ga ayada waxa hoos imaado laba maado ay hoos imaado. Waxa ko embryology-ga wuxuu hoos imaadaa anatomy-ga, sidoo kale histology-ga wuxuu hoos imaadaa anatomy-ga. So mid kasta waxa ku wadaagi doona buugaagta ugu wanaagsan ee la akhristo. Waxa ku horumari doona anatomy-ga. Anatomy-ga markii laga hadlayo waxa la yiraahdaa buug ugu wanaagsan ee haddii aad sanadka koowaad ee aad u muhiim tahay in akhrisid waxaa waaye buug la dhaho Atlas Anatomy. Atlas Anatomy runtii waa buug aad u weyn, sidoo kale waxyaaba uu ku fiican yahay aad loogu amaano waxaa kamid ah waa buug wato sawiro badan ama illustration badan ayuu leeyahay, so fahamkana aad ayuu ugu muhiimsan yahay. So Atlas Anatomy waa buug ugu weyn ama ugu muhiimsan koowaad ee lagula taliyo ardayga caafimaadka sanadka koowaad inuu akhriyo. Buugga labaad aan kula talinayo in akhrisid maxaa la yiraahdaa haddii aad tahay first year medical student wuxuu yahay buugga la dhaho Human Anatomy volume 1 volume 2 volume 3 ayuu leeyahay. buuggan marka waa buug aad iyo aad u weyn runtii wuxuu leeyahay volume badan ayuu leeyahay 1 2 iyo 3 ayaa loo kala qaadaa. buuggan wuxuu aad ugu wacan yahay ama aad loogu amaanaa xitaa waa regional book region kaga hadlayo waaye abdominal pelvic-ka maxaa la yiraahdaa upper limbiga lower limbiga ay shay ayuu ka hadli doonaa. So marka buuggan aad ayuu xiiso badan yahay. haddii aad akhri weysid buugga koowaad Atlas-ka buuggan runtii aad ayuu ku anfici doonaa. buugga saddexaad oo inta badan la dhaho aad ayuu wanaagsan yahay waa buug la dhaho maxaa la yiraahdaa Snell Anatomy. laakiin Snell Anatomy aniga kulma aadan taliyeen haddii aad tahay sanadka koowaad ee jaamacadda, inkastoo sanadka koowaad maybe macallimiin qaar ay dhigaan buuggaas, laakiin Snell Anatomy waa buug aad u weyn asina aad u qurux badan, laakiin wuxuu ku wanaagsan yahay markii aad tahay sanadka labaad iyo sanadka saddexaad iyo sanadka afraad oo kale. Okay, aw gudubna marka maadada la yiraahdaa ama waxa la yiraahdaa embryology-ga. Embryology-ga runtii wuxuu hoos imaadaa anatomy-ga. Embryology wuxuu aad iyo aad ugu muhiim yahay sanadka koowaad ee jaamacadda. sanadka koowaad ee jaamacadda waxyaabaha qaadanaysa ayuu kamid yahay embryology. Embryology marka buug ugu weyn ama ugu muhiimsan ee la dhaho waa aad u wanaagsan yahay waa buug la dhaho Medical Embryology, magac kalena Landmark ayaa la yiraahdaa. kor ayuu kaga qoran yahay, wax dhan kor ayaa soo saari doonaa. Okay, buuggan hadda kor ayaan soo saari doono runtii waa buug aad u wanaagsan. ani marka first year ahay buuggan ay soo qaatay. buuggan waxyaaba ku fiican waxa waaye sawiradiisa aad ay u fiican yahay, illustration ayuu wataa, sidoo kale ku kala saari doona first embryonal week, second week, third week, waxyaaba dhan fourth week, fifth week. So buuggan marka runtii aad iyo aad ayuu qurux badan yahay, aad ayuu muhiim yahay. So waa kula talnaa buugga embryology in akhrisid. sidoo kale waxaa hoos imaada anatomy-ga ama sanadkooda qaadi doonto waxaa kamid ah maadada loo histology runtii buugga ugu muhiimsan aan kula talnaaya in akhrisid wuxuu yahay medical histology, khaasatan Atlas book la dhaho. Okay, Atlas medical histology maadada lahaa jirto. Okay, ama book so buuggaas runtii asina aad ayuu wanaagsan yahay, aad ayaan kula talin doonaa. Okay, let's come to our maana marka physiology. Anatomy ayaa kasoo dhamaanay iyo sidoo kale embryology iyo histology. hadda waxaan umaaneynaa marka maadada loo physiology. Physiology runtii waxay muhiim tahay sanadka koowaad ee jaamacadda. runtii maadadaasna weligeed kama harayso sida anatomy oo kale imtixaan aad gali doontid, ay meel aad tagtid, ay question lagu weydi doono anatomy iyo physiology kama maarmi doontid. So physiology book ugu muhiimsan ee inta badan la dhaho aad ayuu wanaagsan yahay waa book la dhaho Guyton. Okay, Guyton Physiology waa runtii book aad iyo aad u weyn oo qurux badan, aad ayaan loo amaanaa. physiology buuggaas laguma haysto, conceptigiisa wuu wanaagsan yahay, waxyaabaha badan wuu kusoo koobi doonaa. so inta badan aad ayaa loo amaanaa. Okay, inkastoo aniga Guyton aanan akhrinin buug la dhaho Essential Physiology oo runtii asina aad u qurux badan oo maxaa la yiraahdaa detailing ay inta badan akhristaa, laakiin haddaa tahay first medical year-ka waxaa kula talnaa Guyton Physiology inaa aad xoog u saartid. Okay, sidoo kale maadada kale ee muhiimka ah qaadi doonto waxaa waaye biochemistry waxay kamid tahay maadooyinka ugu muhiimsan basic ayadana weligeed aan ka hari doonin. meesha tagtidba imtixaan kasta ay gashid biochemistry kama maaranto, waa meelaha ugu muhiimsan micnaha. Okay, so asina inta badan haddaa tahay first year medical student waxaa xooga saartaa maadada la dhaho ama buugga la dhaho maxaa la yiraahdaa biochemistry living code. Okay, living code ama biochemistry illustration living code buug la dhaho oo khaasatan biochemistry-ga runtii aad ayuu wanaagsan yahay,
aad ayaana loo maxaa la yirahdaa loo amaana. Okay, buugtan ani inta badan research badan ku sameeyay, so inta badan dadku waxay dhahaan markii la akhriyo buuggan la dhaho guide maxaa la biochemistry-ga qaasatan living code biochemistry-ga aad ayuu qurux badan yahay. living code na ogaada, living code noocyo badan ayuu leeyahay, asoo pharmacology jiro, asoo maxaa la yiraahdaa histology, asoo ay nooca jiri karo. Okay, so living code ani sidiisba hadda living code arko waa maxaa la yiraahdaa waa iska jeclaa waa akhristaa, because living code waxyaabahooda dhan waa soo koobayaan, qaabka fahankooda uu fiican yahay, qaabkay wax u qoraan innaba caadi maaha. Okay, buugooda innaba caadi maaha. Ani living code waa ku haystaa, aadaan u akhriyaa living code-ka. So marka living code-ka asoo pharmacology jiro waa kasoo hadli doonaa waxyaabahaas oo dhan, laakiin hadda waxaa ka hadlaynaa asoo biochemistry waaye. So living code biochemistry-ga asigana runtii aad ayaa loo amaanaa. Haddii aad tahay first medical year runtii waa kula talinaa biochemistry inaad akhrisid living code-ka. Okay, so intaas waxay ahaayeen marka buugagta ugu muhiimsan in sanad koowaad aad akhrinaysid haddii aad tahay sanad koowaad.